Dowladda Turkiga waxay si toos ah u sheegtay in xaaladaha siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha mucaaradka in aanay saameyn doonin arrimaha ku aadan soo saarka shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee Soomaaliya. Turkiga waxa uu sidoo kale sheegay in xilligan la joogo aanay sidoo kale saameyn ku yeelan karin taageerada ay siinayaan dowladda federaalka sida sugidda amniga, tababarka ciidamada, qalabaynta ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, diyaarinta agabka iyo goobaha loogu talagalay in lagu soo agaasimo dhanka iyo kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya, iyo in ay dowladda Turkiga ay ka shaqeyso qaabkii ugu fududaa ee loo gaari lahaa hadaf siyaasadeedka ah in la soo saaro shidaalka Soomaaliya guud ahaan dalkana laga faa'iideysto. Xubno sare oo ka tirsan waaxda sirdoonka Turkiga ayaa Muqdisho safar ku tegay iyagoona ku baxay arrinta ku aadan isqabqabsiga dowladda federaalka iyo xubnaha mucaaradka, iyadoona ugu dambeyn dowladda Turkigu ay markaan guulo muhiim ah ay ka gaartay isfahamsiinta dowladda federaalka iyo xubnaha mucaaradka oo maalmo ka hor ku dagaalamay magaalada Muqdisho. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Turkiga ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyiintooda safaaradda Muqdisho ay la soo wadaageen warbixino iyo macluumaad la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay Muqdisho, gaar ahaan kan sida tooska u saameeyay ee degmada Cabdicasiis ka dhacay meel aan sida ugu fogeen safaaradda Turkiga ee Muqdisho. Waxa uu sheegay sarkaalkaasi in dowladda federaalka Soomaaliya ay kala hadleen joojinta dagaalada, sidoo kalena xubnaha mucaaradka ay la hadleen isla markaana dhankoodu ay aqbaleen soona dhaweeyeen. Waxa uu intaa ku sii daray in dowladda Turkigu ay bogaadinayso dadaalada odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta kala duwan ay ka dhex wadaan dowladda federaalka iyo xubnaha mucaaradka si loo damiyo xiisadda siyaasadeed ee bogagga ugu horeeya warbaahinta caalamka qabsatay. Isku dhicii ka dhacay galinkii dambe Arbacada magaalada Muqdisho Khamiistii ilaa galinkii dambe Jimcaha soo gaaray ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay xaaladaha guud ee la xiriira dhanka siyaasadda Soomaaliya, iyadoona isu socodka degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir uu u joogsaday arrimo la xiriira sida ilo muhiim ah ay u sheegeen warbaahinta Xuraasi in dhaqdhaqaaqyadaasi iyo colaadaasi saameynta dowladda federaalka Soomaaliya waxay ugu dambeyn qaadatay go'aan qaraar oo la xiriira qaabka sugidda amniga guud ee dalka, iyadoona dowladdu ay sheegtay inay ka go'an tahay sidii degmooyinkaasi dib la isugu furi lahaa, iyadoona ujeedka ama hadafka guud uu yahay qaabka ugu fudud ee loo gaari karo ahdaafta la xiriira dhanka siyaasadda, sida ay sheegeen ilo wargal ah oo la hadlay warbaahinta Xuraasi. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa labaduba waxa ay dowladda Turkiga erge ka socotay toos ula hadleen. Waxa ay u sheegeen in xaaladda siyaasadeed la qaboojiyo, arrintuna ay noqoto mid aanay afka dhaafin, maadaama gacanka hadalka ama dagaalka tooska uu yahay mid dhaawacaya dadaalada kala duwan ee Soomaaliya, iyadoona dowladda Turkigu ay sheegtay in ay jiraan cadow fara badan Soomaaliya ay leedahay si looga kaaftoomo ama looga fogaado danaha cadowgaasina loo baahan yahay in la sameeyo dadaalada kala duwan ee arrintaasi lagu gaari karo, sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga. Waxaa jira eedo loo jeediyay dowladda Turkiga oo ah in ciidamada ay tababareen ee Soomaaliya qalabka ay siiyeen, hubka iyo waxyaabaha kale in dagaalka ay qayb ka noqdeen, laakiin dowladda Turkiga ayaa arrintaasi waxay isugu difaacday in waxa ay taageertay garabka ay siisay ciidankana u tababartay ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka ciidankaasna ay tahay mid dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyad walba oo timaad laga weydiinayo. Waxaana dowladda Turkigu ay sheegtay in aanay habbooneen xilligan xaaladdu in laga sii daro oo gaarto meel aad u sareeya, isla markaana dalka uu mar kale qalalaaso iyo culays kale uu wajaho, isagoona Soomaaliya waa dhanka Soomaaliya ama iyadoo Soomaaliya ay wajahayso xaalado culays oo dhanka dibadda ah, in markaan loogu sii daro culaysaad kale oo gudaha ay keeni karto in markaan ay ka niyajabaan dalal kala duwan oo Soomaaliya si gaara ula socda. dowladda Turkiga waxay rajo ka muujisay in ay gogol u dhigto dhinacyada siyaasadda Soomaaliya isku haya si ay u wada garamaan iyagoona ka wada hadlaya xaaladaha iyo sida xalka waara lagu heli karo.
wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku mahadsan tahay daawashadii ku xirnaanta wararkayga.